wafdi balaaran oo uu hogaaminaya madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa maanta soo gaaray magaalada Muqdisho iyada oo garoonka diyuuradaha uu ku soo dhaweeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud warbixin warka ku saabsan waxa inoo haya wariyaheena Yaxya Cali Faar wafdi balaaran oo uu hogaaminaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxa ku soo dhaweeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Federaalka Soomaaliya iyo diblomaasiyiin wafdiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa waxa ka mid ahaa marwada koowaad ee dalka Turkiga ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Turkiga iyo sidoo kale wasiir ka tirsan dawladda dalkaasi Turkiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho iyadoo sidoo kalena marwada koowaad ee dalka ay soo dhaweysay dhigeeda wadanka Turkiga intaas kadib ayaa labada madaxweyne waxa ay salaan ka qaateen ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Turkiga Rajab Tayyip Erdogan iyo wafdiga la socday ayaa waxa ay ku yaranasteen qaybta VIP-da ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho wafdiga ayaa loo soo galbiyay gudaha magaalada dhinacyada wadada ayaa waxa taagnaa dadweyne aad u fara badan oo watay caleemo qoyan sawirrada madaxweynayaasha dalka Turkiga iyo kan Soomaaliya iyo sidoo kale calamada Soomaaliya iyo Turkiga waxaana ay ku dhawaaqayeen erayo ay ka mid yihiin soo dhawow madaxweyne Erdogan intaas kadib ayaa wafdiga waxa loo soo dhaadhiciyay xarunta safaaradda Turkiga Soomaaliya ay ku leeyihiin madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool magaalada Muqdisho waxa uu ugu mahad celiyay sida balaaran ee quruxda badan ee loo soo dhaweeyay havalimanından büyükelçilik binasına gelene kadar yolun sağında solundaki bizlere gerçekten sevgi gösterisinde bulunan ağırlıklı Somalili hanım kardeşlerime, şahsım, eşim ve heyetimizdeki tüm hanım kardeşlerim adına en kalbi şükranlarımızı bildirmek istiyorum. Waxaan rabaa inaan si gaar ah halkaan uga mahadceliyo laga soo bilaabo airportka ilaa aan ka imaanaynay safaaradda dadkii shacabka ahaa oo u badnaa haweenka oo taagnaa wadooyinkana tusayay in jecel ay noo qabaan magacayga magaca haaskayga iyo magaca haweenka Soomaaliyeed ee Turkiga waxaan rabaa inaan uga mahadceliyo halkaas 5 sene önce Yaxya Cali Faar SNTV Muqdisho